بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدو جيدان waxaan marnaa imika bay saacadu tahay 6 oo buuraha banka geeriyaad oo u dhaxeeya maxay ahayd tolay magaalada Geerisa iyo magaalada Lugaya wafti badan baan nahay baa u taqaano inaga dambeeyaan qaano way naga horeeyaan sidoo jeedaan bankaas waa bancad alla ileengeed la qabsaday Soomaaliya oo jirtay waqti meesha waxaan ku yiri geed harsatada ma leh waxaan joognaa ceelkii Karuure daawadayaal imka sadalkan ka arkaysan waxaan joognaa ceelkii Karuure waa ka ceelkii dararkii xooluhu ka cabayeen waa kuwan waryaadheen culimo warrama soo dhawow saaxiib magaalada magaceed Karuure ka waran biyaheeda bal kuleyl xeebaba xeebtii imka halkan intee ka jirtaa ma dheera baddu intee jirtaa ما ديرا كيلومتر كيف هو ما قياس قريه imse geed saasad ku garanaysaa geediyaalma guulabay dadka tuulada jooga ma leeyahay ma sadheera ma socotaanba lug ma lagu tagi karaa lug haa wada taga 6 saacadood baa loo socon karay 5 saacadood oo lug ma dhawa waa kan ceelkii dararka xooluhu ka cabayeen waa kan deegaanada fog ee xeebta kulaalayo weeyaan halkan digada ariga halkan ka buuxda xoolo cabid digadoodii waxa weeyaan tan waa barkadkeeda halkan bisad baa ordays waa kuwan dararka xoolo ka cabiya halkiina waa ka daawadayaal saacadu hadda waa 7 habeenimo waxaan ka nimid magaalada Karuure waxaan ku soconaa magaalada Lugaya waxaan mari doonaa hadii Ilaahay ka dhigo banka weyn ee Geeriyaadka oo ku dhawaad 9 kiiloomitir oo isku weera oo aan hal geed oo aad harsata ka bixin waa ban aad iyo aad u weyn inta badan baabuurta gaadiidka ee maraysa maalintii ma maraan maadaama ay tahay xeeb oo aad ay u kulushahay isla markaana baabuurtu laga yaabo inay kululaadaan bacaad iyo kulayl ayuu isku darsaday bankani waxaan u sii jeednaa halka Ilaahay nabadgelyaha nagu geeyo hadii Ilaahay ka dhigo muuqaalka ku soo dhawaada guuraha habeenimo iyo gudcurka habeenkii yaalta halka ka arkisaan waa habeen badh daawadayaal waxaanu joognaa Geeriyaad waa 8 habeenimo Lugayaan ku soconay waanu ambanay meesha malaabeesa martay dhulku waa ka gaarigaasaan wadanay baabuurtiina la socotay waa kuwa xagaa ka soo iftiimaya weeyaan waanu ambanay habeenku waa habeen badh halkan baad moodaa inay qoraxda taagan tahay kuleelka dhacaya hanfi weeyaan Geeriyaad baan taaganahay imika waxaanu sii gelinaa laba dhagedka meesha la yiraahdo oo bana oo iyaduna aad iyo aad u sii kulul waa xeeb bankii Geeriyaadkaanu ku ambanay ilaa maqribkii ilaa imika 9 habeenimo tahay waanu soconaynay meel aanu soconayna garma maabka naga lumay maab miibaan imika soo dejiyo in yaro internet aan helay marka toosoo imika u soconaa annaga ugu saxsan maayna doodhidii kale oo ku xagaa taagan aad bay nooga fog yihiin waa meel cidla oo hayjada cid ku tilmaantaan lahayn la socdo muuqaalkiisa ku haya muuqaalkii sanadka maray ayaa raadkiisa meesha ku sii yaala 10 bilood ka hor buu mala roobkan meesha helay saadaan idhaahdo eeg waa meel aad iyo aad u adag daawasho wanaagsan muuqaalka la socda inna la socotay waa kuwa imka halkaas iyagina naga darano amba anaga horgelayno waan la ambanay marka waa kuwa imka halka maray waa ina marsha kuwa gawadhidii Geeriyaad gabalka ugu dhacday maqasho waa kan
وميل حيبو كلول وحالك هاك مقدار كسنة وبشي ويان وضيح ما تقنا إنا ماري قرياد يلي قلت قري نبضي وقت كدب waxaanu helnay wadadii saxda ahayd ee tegaysay magaalada Lughaya imika si fiican ayaanu wadada ula haysanaa waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan nabadqab ku tagi doono magaalada Lughaya ee xeebta ku taala gariyaadka habeenkii haddaad meesha hore u marin oo lagu ambada ama lagu dhumaa kayaanu soo galnay Lughaya oo taa Lughaya bartamaha suuqan taagan badina halkan dhow naga kulaalaysa halkan سبحان إن شاء الله بكرة ماذا بدنا شيء تاور كاسات كارك تنبرق دوفان تسقر كل نعدي والتاور كده عيويان هل كان ممكن مدحوينه كسر دقي تاور هذا دعي كي اللي لقى ويان لكن هو شقية خسن حال الساحن ما شاء الله اركب الضرور والصبح ثلاثة راه إمكانك كليتنا مقالة اللغية إن شاء الله أنا قبل دونا مقالوين كلولة كركارب بري iyo karbadada Lughaya nimka kale doona subax salaad hore weeyaan waxa ciidana way tuki dawadayaal soo dhawaada subax wanaagsan maalin wanaagsan gabi ahaan waqti kasta idin tahay wanaagsan waa maalin kale oo qurux badan oo waagu nagu bariyay magaalada Lughaya ee xeebta gobolka Awdal halkan musaaq waagu nagu bariyay xalay waxaan nuugnay عدير هالكن أو قرح بدن ما نكون ساحني بلا هذه أترنتي أن أذوق كمان أذوق راح يسنبه حيد حتى أيام ككله تونا هدي له كده هذا واحد هيجينا السوقة هالكا واحد فرمس اللي هقودن هالكا واحد وده كان حلا ساحني هالكا واحد إسبيتال كي وينه المجال هذا الوقاية إن حتى أيام نوبح تونا مجال هذا قرقارة بري كلام نسيم ريتونا كربت دربان مانتك قدين دونا هدي لها كدقو halkaasna waxaan ka tagi doonaa magaalada Hargeysa aad iyo aad baan idin salaamayaa muuqaalka quruxda badan subscribe ta like ti comment ga noo saara nagu xidhnaada aad iyo aad bad mahadsantiin halkaas waa xanaanada Lughaya weeyaa dawladda hoose Lughaya noota ayadana waa halka ku taal sidoo kale isbitaalka guud ee magaalada Lughaya ay isaguna kaas ka isbitaalka maanta waa roob joog magaalada Lughaya wax ka baxa geedka dhamasta la yiraahdo waad aragtaan inuu suuq oo dhan cagaariyay halkan ay tiimeygiiba aad looga dabaaldegay oo meel aad iyo aad u qurux badan hotel magaalada yar dhexmar doona insha Allah hadii la fadhiyo in yar oo warbixina haddaan halkan idinka siiyo halkan waqtiyada kamid ah waxay ahayd waxa ku dhacday duufaantii loo oran jiray sagar isla markaana baabi'isay dad iyo dunyo iyo xoolo iyo beeraha dhulkan dadka deegaanku waxay isugu jiraan beeraley qaar kamid ah waa xoolo dhaqato halka qaar kamidina ay ka faa'iideystaan oo ay soo jilaabtaan kheyraadka badda insha Allah muuqaalka la socda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Siilici ayaa dhowr jeer halkan safar ku yimi duufaantii sagarkana madaxweynaha ayaa halkan isaguna yimi isagoo helicopter ku yimi taawarada magaalada iyo isgaarsiinta ayaa gebi ahaan ballaalaabmay oo ay duufaantu daadisay xilligii duufaantu sagarku ay dhacaysay dhulka xeebaha marka joogto waxa aad iyo aad u qaylinaya oo aad iyo aad cidiisa aad u maqlaysaa xayawaanka la yiraahdo tukaha iminka gebi ahaanba magaalada ka seexan kari maysid waxa kaliya aad maqlaysaa waa ciida tukaha dadku weli way hurdaan may soo kicin magaalada Lughaya waxa aad iyo aad iyada nooga baxa geedka leeyahay dhamasta oo ay dadku aad u beereen si kulaylka faraha badan iyo hanfiga dhacaya ay uga yareyso dhirtu waxay soo deeysaa baa la yiraahdaa oxygen fara badan hal carbon dioxide kana ay dib u qaadato bini'aadamkuna ay carbon kana soo daayaan oxygen tana ay qaataan oxygen ta waxa ku badan biyaha
mar kasta oo ay oxygen soo deyso vibrationkii faraha badnaa ayaa imanaya oo dabeedna qabow bay keenaysaa. sidaa darteed dadku waxyaabo inta badan waxay beertaan halkay ka dhowdahay halka ma ka dhowdahay halkaasaad ka aragtaan kalluun ay badda soo caaritay ee halkaa yaalla. geelan waxaa la dhahaa qasaal oo baddu dabada la galaa baa layidhi halkaa kula jira anigii wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ayaa halkan lugeynaynaa. wasiir ku soo dhawow. waad mahadsan tahay. waxaan joognaa magaalada Lughaya. waa aroor hore 6dii aroornimo badda xilligeedii baan aniga geeli oo qasaasha haaya badda dabada kula jiray wada joognaa. dhulku waa ammaan maasha Allah. xeebtaa dibaddaas aan iska seexanay oo aanu xalay oo dhan iska hurdoono leedhaysan isu dhigaynay. imikana badda ayaan doonaynaa inaanu iska daawano. markaa dhulku waa nabadgelyo waa ammaan maasha Allah. warama يا دورنا فلير لسه دورنا لما يعانيه goorma la lisaya روح جوجو خلص كبر جوجو waxaan amalay iyaga ma aday ciyaalku buu caday oo muxuu cunaa geelani wallahi geel xadhun dhax ka sawir daaqay xudub buu daaqaa habeenkii halkan u hooyda xalaba ma leh badda dooda galiya baddu dooda galiya waa qasaal balena yaa qasaal ba leh abiyaha madoo dooda galiya oo meel ku soo caarideen uu yaqaan dabash iska yaqaan uu yaqaan ما شاء الله ما شاء الله دول هويون معاه geeli qasaasha ayo badda dhinaceeda fadhiya qorraxdii oo soo baxaysa baddii bal fiyuga maxaa loo dhigaa maanta inaa lillaah Lughaya idinka soo salaamaya aad iyo aad baad mahadsantihiin alla cadda fiyu waxeeb aad u nadiifa halkaa magaaladii Berbera nagaga beegan iyo Bulaxaar halkaana Saylac baa nagaga beegan oo iyaduna 170 kilomitir ku dhawaad bay jirtaa 190 meelaha magaaladii Lughaya wata qurux iyo qurux waa geelan badda ka didayn weeyaan oo badda dhinaceeda iska fadhiya هذا النبيذ وقرح بدن حتى صدقها كانت حصول بروح يقول عليه هذا وراح لأمك عليه الصبح Lughaya كان عن كتب الصبح الساعة بدأ واحد شغل عبيه ينسى ليش يقول لي بدأ غير اللي فيه كتب الكتب وراح لك الصبح له لو دير صدق سما كان اللي كل لما له ayaa la geeyay geed furan leeyahay badda dhinaceeda ka baxa dalka ka arkaysan meesha dhan waxa istagay baddu lahir qabooba irkubooda dheera bishu wali ma tabanba balantuna ma waliba wal muuqaalada subscribe saar insha Allah geela badda dhinaceeda lagu lisayeen eeginaa markan insha Allah fiona inuu ku dabaan soo soo dabaalanaya inuu dabaan badda ma soo wareey maanagu
وما يوحى كم سنة جاي لمبة داقية ها أرور تورون لقوا ماليو ها عني سنة لعبي ها أيوة البكم يمسن وحول بنت سلاك إن والبو حسكم أتيم سقولي هوس جيلا لكن شفتي أي مقاشو جيل با أرور تورون بطة كصوبها تبدو والله ما وابا يابي لها يبا يا بلاي والله بدل ما قال قيلو نبغى عصا حوادث كم يلا وقيل نظيفة والله أبار بتشوفه ها يبقى كان قعنته wax lagu siiyaa oo وكيف أوركي بارقة قيل نوا كلك تاجن ساعة ذهبي ويا ساعدني ها والله odayaal muuqaalka quruxda badnaa inta kasoo dibiyay magaala xeebeedka Luqaya gobolka Awdal intaasaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkana subscribe saara yaa lise saadna muuqaalkana subscribe saara aad iyo aad mahadsantihiin wala salaam iyo meeksir dafaa dunida ku joogtaan aad baad mahadsantihiin insha Allah وعانا دلك هويدي دلحيسكا كوفيانا ددكيغو واناغسنا تنتيسو حاريرسنا درها يروبي فوقفوقي تدبالي هيي كودي درها يروبي فوقفوقي